iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dawladda Turkigu ay waday qorshe ay ku doonaysay inay ku kulmiso salaadiinta Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliya isla markaasina ay wajiyadii wada hadallada ay u bedeshay qaabka noocan ah kadib markii ay kulamo kala duwan u la yeeshay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Turkiga Soomaaliland iyo Soomaaliya magaaladani Hargeysa salaadiinta siyaasiyiinta iyo waliba aqoonyahanka ayuu kadib u go'aan ku gaaray inuu kulamo kala duwan u isu qabto ama soo diyaariyo salaadiinta labada dawladood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya afayeenka salaadiinta Soomaaliland Yuusuf Xiiray oo saako Cable TV wax ka weydiiyay aragtidooda ku aadan salaadiinta bal inay ka qayb galayaan shirkaas iyo inaanay ka qayb galaynin ayaa waxa uu ku jawaabay waanu ka qayb galaynaa waanu soo dhaweynaynaa haddaanu madax dhaqameedka Soomaaliland nahay markay sidaa tahay annagu waxay soo gaadhay doorkii annagu aan maanta lahayn ninna uga habran mayno afar nin dalku u aftuunaan maayo ragale dhaqan madax dhaqameedku ma geli karayana nin walba naga sultaan dib u noogu faylaya annagaana gal siiraaya naga waa madax sultaan ciraan naga sultaan fasaxa naga sultaan siyaasiyiinta naga sultaan oday walba naga sultaan way nagu daba faylayaan waxaan eegay dib dambe ugu daba fariisan mayno siyaasadda dalkan waxaan la huurinayay ee saa loo huurinayna banaanka la soo dhigaya asxaabta mucaaradka ee ucid iyo wadani oo Cable TV markale mikrofoonka la dhex qaaday iyo markale weydiiyay aragtidooda ku aadan qorshaha ay wadada dawladda Turkiga ay ku doonayso inay wada hadallada wajiyadiisa hore lagu kulmi jiray ay u bedesho salaadiintu ay ku kulmaan ayaa waxay sheegeen in iyagu mas'uul iga tahay hawshaasi xukuumadda hogaaminaya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isla markaasna ay markasta iyagu daba fadhiyaan balse ay salaadiinta ay Xuseen ay ku ekaadaan oo kaliya hawlaha shaqo ay u qabtaan ardayadooda kala duwan haddii uu caynka cidi leedahay waxay ka dhigan tahay Soomaaliland ma jirto xukuumadii ma jirto waa beelo wadayaal beeluhu baana cuqaasha loo yeedhaa anna waxaan u aragnaa taas inay tahay gef qarankan iyo ummaddan laga galay wada hadalka waxa kaliya oo ka qayb gali kara xukuumadda ay ummadda ka wakiilka ee xilliga joogta cid kale oo loo ogolyahay ma jirto waana shacab ayay ka mid yihiin madax dhaqameedku waxaana madax dhaqameedku hoggaan u yihiin beelahooga hoggaanumaha Soomaaliland doorta madax dhaqameedkeenu xil bay noo hayeen oo madax dhaqameed arrimo dhaqan ay xilkoodu u ahaa ummadda Soomaaliland ay u hayeen arrinkoodu arrin siyaasadeed ma ahayn arrinka siyaasadda xukuumad baa loo doortay shacabka Soomaaliland ay u codeeyeen arrinkaas inuu soo shacbaxo oo la ilaa madax dhaqameed baa loo geenaya dadniis waxa ka dhigan tahay Soomaaliland dal jira maaha oo dad Soomaaliyeed oo de odayaashii dhaqanku baa la danba heshiinayay weeyaan abti dawladnimadii iyo wixii aan ku taameynay macnaheedu de meeshii ka baxeen wali waxaan la yaabanahay in xukuumadda Soomaaliland ilaa hadda aanay wax eraya aanay ka oran bariyahan wadarkiisayno kaabayaashii dhaqaale oo dhan ayaa la xubsiibay oo la wareejiyay waxaan maleeyaa wada hadalladii Soomaaliland waa la wareejiyay Maxamed Kuraase Cable TV magaalada Hargeysa